muuqaal kale magacaygu waa cabdirasaaq beejkaad iga daawanaysana waa ina dulqaad weyne waxaynu caawa falanqaynaynaa nimanka hakarka ah waad maqasho shaki ma lahan balse su-aashu waxay ka taagantahay sidee loo qabtay raggaas intii la qabtay ayaan sheeko gaaban ka diyaarinay iyaga ayaanu falanqaynaynaa su-aal markii aad maqasho hakar ama burcadka internetka maxaa niyadaada ku soo dhaco ma waxaad sawirataa nin caqli badan 20 sano keyboardka saaxiib la ahaa mise waxaa niyadaada ku soo dhaco nin haysta kombiyuutar kale awoodna u leh inuu xogtaada akhriyo mise waxaa ku soo dhaco niyadaada nin xadal lacagaha adduunka ku jira bangiyada waxaasoo dhan waa wax hollywoodka iyo niyuusyada sawirada ee adiga ee kaa gadeenaa balse waxaa jira sawir kale oo aan lagu qeexin muxuu yahay sidee ayaa loo qabtaa dadkaas caawa ayaanu halkan ku falanqaynaynaa dib aynu ugu laabanno 2012 Woma wuxuu ahaa nin hakar wuxuu jabsaday New York Police Department computer systemkoodii banaanbax xoogan ayaa arrintaa ka dhashay New York xilligaas waxay dadku iskugu soo baxeen saldhigyada waaweyn dhanka kale Woma wuxuu ka tegay erayo uu islahaa isagu dadku taariikha ku ahaato ama dadka kugu xasuustaan erayada oo ahaa pound oo PWND kaas oo ahaa website la isticmaali jiray 10 sano ka hor wuxuu kaloo website-kaas lahaa sawirro aad u qosol badan hase ahaatee singalada u daran fadlan ha idhihin sawiradan ma aanan fiirin haddiiba aad fiirisay waxay taa kaaga dhigan tahay in si sahlan loo geli karo kombiyuutarkaaga laabtobkaaga iyo telefoonkaagaba balse qaladka ugu weyn uu sameeyey waxa ahayd markii uu xaaskiisa ka dalbaday in ay sawir u soo gasho sidaasoo kale ah kuna soo gashay sawirka iPhone-keeda cusub balse waxay mooganaayeen in iPhone-ku leeyahay GPS chip waxa la yidhaahdo oo ah kaamiradaada caadiga ayaa waxay leedahay GPS chip wax la dhaho ku salaysan meesha aad joogtid iyo meesha sawirkaa ku gashay caddeenaya taas oo booliiska ku caawisa inay sawirkii soo helaan kadibna baaraan sawirkaas ayaa dabagalkiisu waxa uu noqday Australia magaalada Melbourne meel la dhaho balse taana waxay ka dhigan tahay woman in gacantiisu isku biray balse xaaskiisa markii la wareystay waxa ay sheegtay in ninkaas uu yahay ninkeedii asagana uu ka dalbaday sawirkan ugu dambeyn xogtii oo dhammaystiran waa la soo helay ninka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Vigny Akoa waa 31 jir wuxuu degan gobolka Texas ninkan ayaa ku takhasusay software engineering balse dhanka kale ninkan waxaa la xukumay 2015 xabsina laguma xukumin waxaa lagu xukumay in uusan isticmaali karin social media dhammaantoodba xitaa inuusan isticmaali karin internet shakhsi ahaantaada haddii internetka laga cunaqabateen lahaa maxaa samayn lahayd aniga xaggayga mar la wareystay ayuu sheegay inay dadka aad u dayacan yihiin una baahan yihiin dadka inay aad iskaga taxadiraan barnaamij midkan lamida intaynu ku kulmi doono sidaa nabadgelyo